bilaanta Soomaaliyeed ee STNs abaabuli oo ka shaqeysada farsamada galante oo ka nool xaradaha qardheer ee wali ko waadahayaan dhibaatooyin fara badan oo ku haysada dhanka farsamada galante maynu ku codsadahayaan hay'ado samafalka oo ka howlgalaw xarooyinka qaxootiga Radhaab intii iyo ka caawiyaan qalab iyo ka shaqeysadaan maadaama duruufo badan ku haysata dhanka qalabka farsamada maynu warbaahinta dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya in sheegane intii iyo sameey koraan farsamo waliba oo dhanka galante maynu ku mitahay hadal shoosada gabdha Soomaaliyeed isqilqaamaan nahay gabdhahan waxay wax ku bartaan axaan meeshan lagu dhisay ayuuto iyo wax isagaajin baan meeshan ku imaanay meeshan inta gruubo degan waan ku imaanay waan ku sheegnay gruubada waa mid ilmo lagu soo furay mid garoob ah mid agoon ah wax walba isugu jiraan gabdha yar oo adoonis gaalis ah waad u jeedaa adba indhahaaga ku aragtaa waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha samafalka iyo wax walba waxaan ugu baaqaynaa horta lambar 1 tuubada biyaha oo baalkigeed way naga go'an tahay hay'adaha tuubada biyaha waa inay noo soo daayaan laba harqaan ma haysan waa inay harqaan siiyaan 3 gruub oo aan ahayn laba gruub baa laga caawiyay 6 gruub oo dhiman inay noo caawiyaan rabnaa ku codsanayna hay'adaha inay samafal ay noo furaan maxay inay noo furaan tababar inay caawiyaan awtaan baan barabnaa rinjigii maxay aan dhar ku soo gadanaynay ma haysano shaambadii aan baray ee sameeynay ma haysano agasaartan waan sameeynaa oo iyagana baray intaan ka baranay maxay caawinaan baranay babisyadii baan baranay wax kasta oo farsamo gacan meeshan ka baranay annaga dharka waan sameeynaa waan karinaa dacsadaha waa talnaa qawjiyaasha babiska wax allaal waxaan qabanayna mala sharqaanka sidoo kale waa talnaa shaambada waan sameeynaa waxaan sameey karin mala wax nasiib mala rinji ma haysano dharki ma haysano ilaahay kuma dunta ma haysano sharqaan ma haysano wax aan haysano hadda nagu caawiyo dambeeysta waxa ka codsanayna in hay'ad wax walba in wax caawiso oo wax ku qabsanay meesha waxaan joogaa muddo la dhaho 5 sano ayaan joogaa waxaana ka bartay qaybta dharka kariska sida dharka loo kariyo kulli ana wax aqoon halkan imaado oo zak maadaama ay tahay waan shaqaysan karaa haddaan maxaa dhihi jiray aan wax igu filan aan helo waxaana bartaa shaambada dharka kulli xagasaarta guriga dhigana ilkeeda maxaa imaaday dharka si loo kor waa aqooda maadaama oo aan haysanin dharkii lagu tali harqaan la'aan sidoo kale ma inka baaqayna bilaanta Soomaaliyeed meel kasta iyo rogaan intii iyo baradaan farsamada galanta maadaama ahmiyad weyn iyo lata bulshada Soomaaliyeed kuwa Soomaali waxaan ugu baaqayaa meel alla meel ay joogaan inay ka qayb qaataan farsamada gacanta oo tagaan meel alla meesha goob farsamo gacmeed ay gabdhaha walaalihii waxaan ugu baaqayaa inay maxaa dhihi jiray fursada hadda ay ka faa'iideystaan camal inay ka faa'iideystaan iyaga halka ay imaadaan ama maamaha ama gabadha hablaha Soomaaliyeed waxa ku baaqaya intay guriyaha ay fadhiin lahaayeen oo ay guriyaha iska joogi lahaayeen inay maxay ay farsamooyinkooda iska bartaan oo ay ku ganacsadaan oo hadday suuq ka shaqaysanayaan ay ku samaystaan guriyaha hadday joogaan ay ku samaystaan goobaha waxbarashada inay aadaan oo wax laga barto farsamooyinka hablaha Soomaaliyeed waxa u baaqaya naag walba ilmo dhashay inay ilmaheeda ku qabsatay gurigeeda joogto oo ay barato wax walba ay barato muqulatahay marka farshaxanka si fiican in loo shaqeysan karo si fiican loo shaqeysan karaa noloshaada iyo ilmahaaga iyo mustaqbalka inta way ku si kasteeba haweenka danyarta ee ka nool xarooyinka qaxootiga Radhaab oo ka shaqeysada farsamada galante yaa ka gudu jira sidii yoong maarayay lahaayeen nolol maalmeedyo mayna ku codsadahayaan bulshada intii iyo ha caawiyaan Idriis Maxamed Xasan warbaahinta dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya gobolka Waqooyi Bari Kenya